الرحمن الرحيم halkaan nagala sootaan waa kanaalka Iglonkit fadlan haddii aad janaalka ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan barnaamijyadii ugu dambeeyay ee caalamka. haddaba maantay waxaynu ka hadlaynaa Sacuudigu muxuu hayraad ugu soo rogay xajka. sanadkii hore iyo sanadkanba wadamada caalamka kale waa loo diiday inay u soo haj tagaan Sacuudiga. haddaba maxaa sidaas loo sameeyay? barnaamijkaas ayaynu falanqeyn doonaa maanta. ku soo dhawaada barnaamijkan isagoo faahfaahsan. wasaaradda xajka iyo cumrada oo ku dhawaaqday in xajka sanadkan 1442 ee hijrada 2021 uu ku koobnaan doona dadka degan iyo muwaadiniinta Saudi Arabia oo kaliya. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay Sacuudiga u diiday inay dadka kale ay u soo xaj tagaan? tirada xujayda ee sanadkan ayaa lagu koobay 6,000 oo kaliya, waxaana xajinaya dadka degan Sacuudiga iyo muwaadiniinta. ayaa ka dhigan in xajkan uu noqonayo kii labaad oo aysan muslimiinta kasoo xajin jirtay dalalka kale ee aanan xajinaynin. talabaadna ayaa mas'uuliyiintii Sacuudiga ku sabaabiyeen in weli ay jirto halista fayraska corona oo weliba isu badbadalayo noocyo cusub. barnaamijkiina meeshan ayuu noogu egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.